السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي دقاليها وإذن سلام دماتين من walba joogtiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada saaxiibada hore nala joogo waxaan leeyahay maadsantiin sida quruxda badan ay la socotiin saaxiibada nagu cusub waxaan ka codsanayaa fadlan subscribe ka igeel maamina adinka oo mahadsan clipkan yarka waxaan rabaa inaan duubo maamo Soomaali naagta la dhaho oo youtuberada ah waa islaam weyn waxaan rabaa inaan laba eray halkan ka iraahdo maamo Soomaali sababta aan ku heestana waxay tahay nin sheekh oo miskiin ah imaam ishag ninkii مسكينka ayo oo xanuunsanaa kansarka qabay inay maalin ilaahay keeno farqaa uga dhiganta maama Soomaaliya waxaan ku leeyahay ilaahay marka hore ka cabso marka xigta waxaan ku leeyahay qof maskiina oo xanuunsan oo isbitaal saaran oo xaaladda aragta ku jirtid inaa caaw inta video usoo duubta aad tiraahid lacagtii oo xaaraantu cuni jiray oo dadka masaakiinta xoolaha gabdhahooda dahabka wax uga furo jiray diinta islaamka oo gabdhaha diinta uga furo jiray dahabka waxaan ku leeyahay ku qaldantahay midda koowaad midda labaad waxaan ku leeyahay ka waran xaaladda qofkaas uu ku jiro kala hadaa ku jiri lahayd oo xanuunsanaa lahayd oo isbitaal jiif lahayd maanta maxaa sameyn lahayd muxuu xaalka ahaan lahaa adigoo isbitaal jiifo oo xaaladaada noocaas tahay oo xanuunsan oo jiran haddii aad maalin kasta aan ku soo caayo maxaa dareemi lahayd ilaahay ka cabsi qof weyn baa tahay waxaa fiican inaa xal lahaatidaa fiican maaha inaa qof walba oo masaakiin ah ninkaasoo kaleeto waxba fiyuuskiisa waxba kama helaysid waa nin iska xanuunsan oo maskiin ah waa nin jiran waa nin aragta xaaladda uu ku sugan yahay isbitaal ku jiro asaga iyo xaaskiisa wixii dhex mara adiga waxba kaama gelin miyay maqlaysaa maamo Soomaali yaa maamo Soomaali hal iga gaadsiiyo muuqaalkan yarka adiga ninkaas iyo xaaskiisa wixii dhex maray waxba kaama gelin adiga waxaa kaa gala ma jirto shaqo kuma lihid shuqul kuma lihid laba qof oo isqabi jirtay oo aanba isqabta hadda oo caruur isku dhashay adiga maxaa kaa gala ya adiga maxaa kaa gala maxay tahay sababta farqaa uga dhiganta hal video maaha oo laba maaha oo saddex maahan ilaa hadda ku dhiganta maxaa uga dhiganta oo kaa qaba madeena ku leedahay laga siiya maxay ka sitaa maxaa adiga kaa gala nin inaag isfuray oo media isku haysto oo Facebook live isku haysto maxaa kaa gala adiga ma wixii ka dhaxay jira ogtahay wixii ka dhaxay jira ma ogtahay maxaa kaa qusay waxaan ku leeyahay qof weyn baa tahay hooyaday oo kala tahay mar rab inaan kugu sii tarax tago waxaan ku leeyahay ilaahay ka cabso aan ku leeyahay waxyaabaha qaar yani waa laga xishoodaa dhowr jeer aan ku arkay fiidiyoyaashaada muuqaaladaada aan ku arkay ma jeclin inaan afaarahaaga galo ma jeclin inaan adiga kaa hadlo amba aan kugu darsado ma jeclin laakiin waxaa aad ii dhaawacay oo aad uga xumaaday oo aad uga gubtaa waxay tahay nin maskiina oo xanuunsan oo xaaladiisa aan wada ognaha maanta uu ku jiro isbitaal ku jiro cunno qaadan karin inaa maalin kasta farqaa uga dhiganaatid inaa wax la dhageysan kara ma aha waxaan ku leeyahay marka dadka kuu sacaabatumaya adiga ee ku dhahaayo waa sax ee hore u socon waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ninkaas miskiinka ee kansarka qaba isbitaalka ku jira Sheekh Shakiib waxaan leeyahay iska dhaaf faraha ka qaad waxba kaama haysto adiga kaamu hadlin xaaskiisa ka hadlin naag uu qabi jiray caruurtiisa ka hadlin adiga maxaa kaa gala adiga ma naagti la qabi jirata ya waa ma naagti la qabamatid adiga naagti la qaba lama dhalan adiga maxaa kaa qusay marka ugu dhagantaa maxay tahay yaa sababta ugu dhagantahay maxay tahay asaga danihiisa ka hadlay asaga gurigiisa iyo xaaskiisa ka hadlay adiga waxba kaama gelin adiga waxba laga weydiin maayo shaqo kuma lihid dadka masaakiinta ay xanuunsan iska daa maama Maliyun markay kugu dhaganeed wallahi garay kugu dhaganeed maama Maliyun habeenka kugu dhaganeed waa la yaabaa laakiin garay kugu dhaganeed ilaahay ka cabso ninka miskiinka iska daa fiyuuski lacagta ku cunto wallahi sunay kugu tahay sun lacagta Sheekh Shakiib ka cunto wallahi bilaa sunay kugu tahay ninkaas miskiinka umad u gargaari jiray awalka horena dadka u gargaari jiray ee labada ogyahay wuxuu ahaan jiray inaa maanta rasaas uga dhaganaatid dacayaa uga dhaganaatid waxba kama helaysid maamo Soomaaliyeed ya mar raba inaan kugu maxay ahayd kugu sii fogaado laakiin waxaan ku leeyahay break hay lahaado waxa aad sameynaysid ninkaas miskiinka aniga waxba iima ahan waxba ilama wadaago bis Facebook aan faran iska nahay habeen kasta ogaa xaaladiisa wuxuu ku hadlaan ogahay inaad soo caytantid oo maanta dhan ku dhaganaatid caawana aad tiraahid lacagta dadka masaakiinta kansar ku rida iyo lacagtiisa lacagta gabdhaha Soomaalida wuxuu uga furan jiray dahabka dumarka wuxuu uga furan jiray diinta islaamka yaqay xaraam عليك حتى ku celsho xuduudna yaalo aan ku leeyahay aniga ya ilaahay ka cabso ninka miskiinka iska daa oo ilaahay ka baqo ilaahay uga baq ma fahmaysa ilaahay uga baq ninka miskiinka aan ku leeyahay maxay ahayd mar rab inaan video kugu sii dheereeyo amba waqti badan time kugu dhumiya diyaar ma ihi bis waxaan ku leeyahay ninkaas miskiinka aniga oo hadlayo asaga ma hadli kara sariir oo saaran yahay ninkaas miskiinka ay xanuunsan isaga fuqdacayahan ugu daayaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iga gaarsiiya muuqaalkan maama Soomaali